xarunta Obesity Center oo adeega caafimaad ee ay bixiso uu hadalhayn badan sababay shalayna ay soo baxday in la xiro ayaa maamulka xaruntaas markii ugu horeysay waxa uu faahfaahin ka bixiyay xariga xarunta. Dr. Kamaaludiin Cabdicasiis oo ah milkiilaha xarunta Obesity Center oo warbaahinta kula hadlay xaruntiisa ayaa sheegay inuu jiro amar ka soo baxay dhinaca dawladda oo xaruntaas lagu xiray. Dr. Kamaaludiin ayaa sheegay in shaqada uu hayo uusan kalsooni darro ka qabin uuna rajaynayo in xaruntiisa dib loo fasixi doono. xaqiiqatan way jirtay in xaruntayda hakad la geliyay maalintii shalay ahayd si ku meel gaara iyadoo la igu yiri walibana dadka dhahaya dhakhtarkii waa la xiray waxba ma ka jiraan si sharaf leh igu yimaadeen igu yiraahdeen in su'aal lagu wareystaa la rabaa waxaad sameynaysaa in laga ogaado research lagu sameeyo and then intii ka horeysana xarunta hakad ku jirto saasan ku aaday xarunta gobolka Banaadir haatanna wax dhiban qabo ma jirto kaliya waxaan rabaa dadku inay ogaadaan waxaan wax ku durayo inaysan lahayn horta wax side effect for the sake of dhakhtar haddaan u hadlo dhakhtar ahaan haddaan ka bilaabo wax side effect haba yaraatay male maadada cirbadaha aan ku duro dadka ay ka samaysan tahay waa hyaluronic acid waa maado jirka hadda ku jirta indhaha laga helaa jointiska laga helaa dureenka dadka hal xabay moodeen adduunka waxaa jirta in silicone la gashto ama horaadadii ama gadaal dambe labadaba in silicone inta la gashto kadib lagu buuxiyo liquid taasaa la yiraahdaa qof hebel naasu soo durtay iyo wax lamida dureenkaas waaye dureenka dadku hadda u fahmeen laakiin tan maadada ah ee jeelka ah ee dibnaha lagu buuxinayo wajiga meesha meenta lagu buuxinayo ma ahan wax dhibaato ama side effect leh mana aha surgery oo qofka inaan qalay oo bedelay ma ahan gabi ahaantiis culimadu markay ka hadlayaan diinta marka u bayro waxay yiraahdeen qurxin qalqiga alle waa loo bedeli karaa haddii ay tahay ku meel gaar saas lamida waa daawooyinka hadda aan faruuriyaha ku duro amaba farihii ama xubnihii kale jirka aan ku duro xaqiiqa waxa ku meel gaar waaye qaar waa 6 bilood qaar waa sanad qaarna waa sanad bar dadku inta soo fahmaan qaliin maahan qalqi allo la dooriyay abadiye ahna maahan inta anu waa isubaa waxaan sameynayo gabi ahaan wax waaye wax aan lahayn dhibaato ama saameyn caafimaad si walba loo raadiyo iyo meel walba laga raadiyo diiniyana anaan badoonayn rasax xalaal waxaan ahayn nan kasbo waana mahadsantihiin Soomaalidu waa iska dad oo negative si ah wax u baahiye layma xirin waa nabad qabaa xaruntana way furmi doontaa goor dhow Ilaahay qadaro wuxuuna waxay noqon doonaa wax muddo badan sii jirto oo dad badan ay shaqo abuur u noqdo business ay ka sameeyaan maadadan u sheegi say u kala yihiin shirkadaha soo saara iyo sida loo dalbi karo intaba waa rajeynaa sida daandiistaha maalin u ahay inay aesthetic ay tahay maalin ay bilaabanayso laakiin dad badan ay shaqo abuur u noqon doonto baran doonaan waana soo dhaweynaa suuq waa ku soo dhaweynaa haddana waa ku jiraan dabcan gadaashay waa la bilaabay waana soo dhaweynaa in badan oo kale tan ay imaadaan duu Ilaahay ma maasantiin soo dhawaada adeegyada caafimaad oo xaruntan ay bixiso dad u badan dumarna ay ku xiran yihiin ayaa sababtay hadalhayn badan walina dawladda federaalka kama aysan hadlin xariga xaruntan iyadoo ay xusud mudan tahay inay jiraan xarumo kale oo badan oo caasimadda ku yaalo oo adeegyo la mid ah midda ay bixiso xaruntan laga helo. Cabbaas Xuseen Muuse 5TV Muqdisho. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab Dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus